dadka Soomaaliya dalka Soomaaliya la yiraahdo in loo qaybiyo marka horeeto manaaqiq in loo qaybso rijin in loo qaybiyo marka ugu horeysa oo aanan automatically marka horeeto laga dhiginin state kamida Ethiopia in laga dhiginin laakiin marka hore laga dhigo states in laga dhigo rijin in laga dhigo rijin walbana loo sameeyo nin governor in loo sameeyo oo ra'iisul qabiilaa oo la diiniyo in loo sameeyo goboladaas marka nimanka joogay Soomaaliya waxa lagu qanacsi oo nin walba oo fermay oo laga qaado laga xaqiijiyay inaanu waxba ka qabanin dawladda Ethiopia inaanu waxba ka qabanin koos noolaadkeeda stage ka labaad waxa weeye in la yiraahdo all waxa weeyaan Soomaaliya under Ethiopia wayna ahaataa qayb kamida Ethiopia weeye central ku waa Ethiopia weeye ayaguna waa rijinna weeye governors marka dambe looga taliyo ardaysa waa inay noqdaan yaa diilaya marka waxa diilaya qadiyada ninkii mutacallimihi toosan ninka walaadka toosan shacbiga anaku wixii aan rabno iyo waxaana rabinba waan cabaynaynaa qof la arkaba hantideeda iyo dhulkeeda iyo dhaqankeeda inay lahaato idoon isticmaari ahay oo shaqo isticmaar ayan ku jirin oo hadhowto lagu heshiiyo diyaaran u nahay laakiin warqadan aragnay waxay sheegaysaa inaan kala afna inaan kala diinna inaanan isku dadahay inaan caloosh iskaga buqno inaan iscunayn war intaan u kala soconaa wala aanu isku cidi mani oo wala isku Soomaali mani meeshaan u kala soconaa la kala geeyahay wax kala go'go'an oo qolo walba ay doonto qolaaday rabto baarlamaanka inuu wuxuu heshiis ku gaaray anaku inaan ayahay mataqaanaa cadawga kala soo dejino ciidamadeeda oo qolo kala dhihi doonto aniga qolo hebel aan soo degsana baarlamaankii oo aniga qolo dhihi doonto aniga qolo hebel aan soo degsana oo qolo walba dhihi doonto aniga hebel aan soo degsana ciidamada islaamiyeed la kala keeni doonto waayo hadda warqadan anaku aado kala afal la naqana kala diina la naqana isku dad la naqali manni ma ka diidan waa muwaadiniinta ninkii wadaninimo ku jirto warqadan waa diidan ma hilaawiye kalimanka shirku adiga xaaji muuse markii hore ka baxday haddana dib ugu soo laabatay in muddo aan waa joogto shirka sawir ceenkii ayaad ka qabtaa hadda shirku miyuu noqon karaa mid mir dhalo mise burbur ayaa ku tilmaami kartaa sawir maagii hore anigu shirka kama bixin qalad iyo wax lees daba marinayo shaqadoon soconaynin inaan ka tago inaan soo shaqeeyo